isaga tahay iska bilow aan bilaabo record garaynayaa Omar يقول ألوسر أسوري أردت جارا إساني بقبو إجابة أرضا نبلغو إلى شور Omar يقول ألوسر أسوري أردت جارا إساني بقبو إجابة أرضا نبلغو إلى شور Amara siro akayo ababulia chamuta Amara siro akayo ababulia chamuta Amon bayan kulu amari Muhammad kadari Orkayga markii ambaray ayaanka alla ku siiyay itanyare abwaayay aweydiniya jabuuta السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan ee setoska hawada nooga daawanayo waa mid kamid ah barnaamijyadan aalaba idina wadaagno daawadayaal haatan waxaanu yara aadeynaa oo aanu tagaynaa magaalada Djibouti caasimada dalkaasi Djibouti haatan waxa ku sugan oo jooga magaaladaasi nin dhalinyaro ah oo ka tagay dalkan Canada aan ku sugannahay ahna dhalinyarada reer Djibouti ee aqoonyahanka iyo waxgaradka ah halkaasna haatan budooyin ku dambeeyay ku sugnaa isagoo u tagay isaga business ma mashaariic u gaar haddana waxa uu haatan ku jira ka qaybgalka ololaha xukuumadda uu garwadeenka yahay mudane Ismail Umar Geele maadaama doorasho haatan loo diyaar garoobayo isla bisha afraad ololihiina uu socdo haddaba Yahye Abdi Mohamed waxaan jecelahay bal marka hore in aan ku soo dhaweeyo ciga studio idaacadda CKC iyo guud ahaanba warbaahinteeda magaaladan Ottawa hadday noqoto qaybta online-ka ee soo tooskan oo daawada Facebook-ka YouTube-ka iyo Zoom kaba sidoo oo kale maqalka idaacadda waxaan leeyahay guud ahaan ku soo dhawow warbaahinta ciga studio iyo CKC guud ahaan Yahye marka hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أهدي أبو ما سنت وأنا لوها ولا waan gartay Yahye waxaan jecelahay bal marka hore dad badan oo aan adiga ahaan Yahye marka la yiraahdo aan meelaha ka daawada aqoon gaarana ku lahayn barnaamijyada la socda ayaan jecelahay bal inaan iskiin baro Yahye Abdi Mohamed oo kuma Yahye ku soo dhawow أهدي أبو ما سنت محمد ولا وأنا لوها سير شيء مقعد ويحيى عبد محمود أنا دائرة عن كندا جبوتي كتير عن كندا تجي مكانور يسوون صلوا دور كندا كلها هلكا تعليم كبرتي وأبو علي عرونا كل علي صدق عرونا كان الحمد لله يا دوم ما تنتهي محمد ما كان كلن كان أنا ورaysi كان ولا يارنينو أنا كول هذا دونه وحياة بدن هذا doorashooyinka ka socda Djibouti iyo runtii wax qabadkii dhowr iyo 10 sanadood ugu dambeeyay xukuumadda mudane Ismail Umar Geele waan gartay Yahye waxa aad ka tagtay dalkan Canada waxa aad tagtay dalka Djibouti oo aad runtii imika ku sugan tahay tagitaanka ka tagtay guud ahaan Canada ee u boqoshay Djibouti caasimada dalkaasi haatan degan tahay ujeedada ka dambeysay maxay ahayd Yahye runtii markii horeysa maxamedow Djibouti waxaan u midayna waa dalkaygii weeyaan dalkan ku dhashay inaan imaado aan dalkaygii iyo dalkaygii baan imaado marka sanadkii hore bishii 8aad baan miday kowdeedii oo markuu caabuqa COVID-19 ku xoog dhulka u saameynayay ayadoo awooda diyaaradihii markii uu dib loo furay alxamdulillah markii uu man soo gaaray
marka iminka dee dhowr bilood oo 8 bilood oo aan joogaa markii uu horeysay de waxaan yimid inaan xoogaa consulting iyo business iyo waxyaabahaasi aan ka furo aan sameeyo alxamdulillah taasina way hergashay fursadooyin badan oo maamulku dawladdu ay aad iyo aad u hirgelisay oo dhinaca shaqo abuurka dhinaca entrepreneur waxaas oo dhan ayaa fududeysay inaan maanta consulting oo dhinaca insurance-ka iyo investment-ka laftigeeda halkan magaalada Djibouti xafiiska asaaso oo xitaa laftigeeda aan Ottawa Canada ku leeyahay labada dhinacba aan u wadaagno dadka bulshada reer Djibouti ama Canada ku noolaadaan ama halkan joogaan iyo waxyaabo kale oo badan laftigooda waan gartay Yahye haatan waxa aad ku sugan tahay dalka Djibouti jamhuuriyadda dalkaasi Djibouti oo aad joogto doorasho ayaa dhacaysa bisha 4teeda doorashadaasi ayaad ka qayb galaysaa sida nagu maqaala ama aad runtii aan ka daawaday warbaahintaba waxa aad taageersan tahay oo aad la socota xukuumadda mudane Ismail Umar Geele ololaha ayaad ku jirtaa ma xisbigaad ka mid tahay mise taageero waxa tahay uun jecel xukuumaddaasi waa taageero ayaan u muujinayaa maxay ahayd musharaxa oo musharaxa RBB-da UNP la isku yiraahdo umbrella-ga guud ahaan runtii horta waxqabadka madaxweynaha Ismail Umar Geele kuma soo koobi karayno barnaamijkan maanta dhowr iyo 10 sanadood ugu dambeeyay dalka Djibouti runtii dee qofka garanaya baa garanaya waxyaabo badan oo mashaariic badan baa laga fuliyay oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha aad iyo aad qorarkii aad iyo aad loo weyneeyay oo 5 dikadood maanta Djibouti ay leedahay alxamdulillah weeyaan xukuumadda mudane Ismail Umar Geele oo madaxweynaha Ismail Umar Geele ay hirgeliyeen runtii kii ugu dambeeyay oo ahaa koorka damaljoog oo halkaasi shidaalka laga dhoofin doono Ethiopia iyo qaaradda kale Afrika laakiin mainly Ethiopia loogu talagalay ay halkaasi laga fulin doono insha Allah iyo dee waxyaabo badan oo kale dhinaca caafimaadka oo caafimaad guud maanta dadku bulshada reer Djibouti ay leedahay wax la yiraahdo kaad individual ama aynis oo qofku leeyahay qofka shaqeeyana xoogaa yar laga gooyo sidoo qofka kale walaalkii waxba haysan haynta hoose si loogu kabo isaga laftigiisa marka runtii doorashadu kaliya muhiim ah aan joogay ka hor doorashadii marka doorashaduna imika sida Mohamed carabka ku dhufatay waa bishan inta lagu soo foodlay bisha 4 9keega ayaa loo bixi doonaa maalinta doorashada insha Allah dadka hormarna imika waxa sii socda campaign-kii wali lama bilaabin insha Allah waxa la bilaabi doonaa sometime next week imika lagu soo foodlay jimcaha laga yaabaa inay noqoto maalintii maalintii campaign-ku officially la furi lahaa sharci ahaan hadda la eego sharciga waddanka yaala laakiin inta ka soo sokow sababta campaign baan dhinaca bankiga jiraan waa la shaqeeyaa dhinaca communication campaign strategy-ga waxyaabaha noocaas website baan sameynay oo www.vote-tir wax loo yaqaano dhexdhexaadka eoj.com so that's www.vote-eoj.com oo xitaa Facebook ku xiran oo YouTube ku xiran oo kalena ay laftigeeda ila caawiso ila qabato waan gartay Yahye waxa si wanaagsan waxa tilmaantay inaad runtii la dhacsan tahay hoggaanka madaxweyne mudane Ismail Umar Geele xukuumadda gobolka Djibouti horumarku gaarsiiyay waxyaabo badan baa taabatay la dhacsatay okay had aynu nimaando waxa sheegtay inuu sharaxay yahay mudane Ismail Umar Geele markii shanaad ma jirtaa mucaarad amba xisbiye mucaarada amba illa tartamayso kula loolamaysa madaxtinimada dalkaasi imika hadda waa laba candidate ayaa u sharaxa maxay doorashada bishan 4
labadaasi oo candidate-ka UNP Ismail Omar iyo candidate kale oo independent magaciisa hore Sikriye magaciisa labaad iyo saddexaad ma garanayo kulliba dadku baraha bulshada way ka arkeen magaciisa labaad iyo saddexaad marka waa labada candidate ba ayaa imika ahaan musharaxiinta isku soo sharaxaya bishan afraad laftigeeda markaasi de way imika intii ka hor intii la xidhin bishan imika ku jirno tobankii ayay maalintii u dambeysay ahayd baan jecelahay maalintii last day ahayd oo candidate qofkii dee adu doonay inuu soo sharaxo uu fuliyo maxay ahayd uu wada buuxiyo shuruudihii looga dan lahaa arrimaha wasaaradda gudaha ay ku shaqo leedahay markaasi qofkii hadduu shuruudaha buuxin lahaa dee marka uu ka qayb galayaa ololka iyo tartanka imika soo socda lagu soo foolhaya waan gartay dad fara badan oo reer Jabuuti shacabka Jabuutina ka mid ah waxa sida aad tilmaantay wax la dhacsan yihiin hogaaminta Ismail Omar Geele dad waxa jira hadaba iyagu ka soo horjeeda gudaha iyo dibadba qaarkoodna ay dhaliilayaan xukuumadda Ismail Omar Geele gaar ahaan doorashada ay ku dhaliilayaan inuu kali sharaxay arintaasi maxaad kaga difaaci kartaa xukuumadda iyo madaxweyne Ismail Omar Geele والله runtii horta anu qofna uma hadlayo anigu shakhsi ahaan Yahye ahaan raayigaygan Mohamed waan ku sheegayaa maanta maxay madaxweynuhu amba musharaxu UNP-gu RBP-du dhowr iyo labaatankii sannadood xukunka ayay waa la arkayaa maanta Djibouti halkay ka timid ay halkay joogto markaasi taasi ciidibadee hadda indhaha la iska qaadayo mooyaane maanta wixii uu muuqdaa halgankii lagu soo jiray waxyaabihii la soo qabtay in maanta la sii kordhiyo oo la sii beeriyana way wanaagsan tahay way habboon tahayna runtii bishii 12aad maalin uu madaxweynuhu shirka ka soo baxay IGAD oo halkan Djibouti lagu qabtay oo shirka loo qabtay dhexdhexaadii markii la dhexdhexaadinayay Kenya iyo Soomaaliya ayaa madaxweynaha la weydiiyay inuu dib isku soo sharaxayo marka halkaa uu ka sheegay una de laba kalmadood keedii je suis partant waxa la yiraahdaa nacam waan ka qayb gali doonaa wax nooca weeg maalinta ka hor haddaan taariikhda dib u yaro noqdo maalinta ka hor waxa isku soo baxay runtii dhalinyar aad iyo aad u fara badan oo madaxweynaha ka codsaday inuu mar kale ku soo noqdo hoggaanka ku soo noqdo uu halkaa ka sii wado uu dhamaystiro wixii intii baaqigii iyo wixii u haray mashaariicdii waaweynaaye la bilaabay la hirgeliyay ay ka mid yihiin sidaas oo tilmaamay kaabayaasha dhaqaalaha dikadooyinkii inka hadda la dhameyn kuwii la dhagax dhigay iyo kuwo kale oo iyaga laftigooda la bilaabi doono oo maxay boorkii horeba mashaariic weyn halkaas insha Allah laga sameyn doono iyo waxyaabo kale oo badan iyo xitaa xukuumadda laftigeeda taasi waxay runtii kaaga turjumaysaa siyaasadda guud ahaan ee madaxweynuhu uu intaas oo sanadood ku soo hogaaminayay dalkani maanta haddaynu dib u yaro noqono dib u yaro eegno maanta Djibouti waa madaqada yar waxaa fadhiya 5 ilaa 6 dowladood waaweyn maanta ay ka mid yihiin Mareykanka Shiinaha Jarmalka Talyaaniga Faransiiska oo Norway gumaystiya marka dowladahaas oo dhan kastaba dan gaar ah u leeyahay marka wasaaradda arrimaha dibadda Djibouti iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynuhu Ismail Omar waxay ka turjumaysaa sida dalka loo ilaalinayo siyaasadda haddaan carab ku arkay siyaasadda Djibouti oo hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto bulshada hadday noqoto caafimaadkii oo maantana dhalintii ay shaqo abuur badan insha Allah loo sameynayo oo halkaasi laga sii wadi doono waxyaabo badan oo maalin dhow dhexdeeda xitaa la sameeyay barnaamij weyn oo la isku soo baxo oo la lahaa la oranayay shaqo abuur la sameeyay ilaa 5,000 oo dhalinta reer Djibouti oo shirkadooyinka Djibouti wala shirkad gaar loo leeyahay amba kuwii dowladda labaduba
ilaa 5,000 oo dhalinta Djibouti halkaa ka qayb galeen markaas waxay taasi ku tilmaamaysaa horumarka iyo horsocodka iyo horwadaagga uu madaxweynuhu markasta niyadda ku hayo oo dadka reer Djiboutina ay muxuu ahaa ay markasta u weeyeen way iska jiraan waxyaabo badan oo baaqiyo oo loo baahan yahay in la kordhiyo oo in la hagaajiyo laftigeeda taasina wasaaradda ama ha noqoto takoraanka ama biyaha waa tusaale kuwaasi halkaa laftigooda halkaa laga sii wado mashaariic waaweyn oo sida waxyaabo badan loo dayactiro laakiin markay noqoto qof kale oo wax dhaliilaya ama wax ka sheegaya maanta waddanka Djibouti wallahi walaalahayo runtii way wanaagsantahay horta dhaliilku aad iyo aad ugu fiican yahay waa criticism weeyaan wax qabad unbaa wax laga sheegaa marka wixii lagu soo kordhinayana waxa wanaagsan in si fiican loo sheego oo si constructive amba si informationkii amba si wax loo kala wadaagi karo laakiin cayl isku soo mariyo baraha bulshada iyo waxaas waa laga wanaagsan oo laga fiican yahay anigu runtii taageerahan iyo madaxweynaha waa wax qabadka iyo bulshada maanta reer Djibouti halkay ka yimaadeen iyo halkay taageen iyo insha Allah halkay ku socdaan iyo arinta iyo waan gartay waa si wanaagsan Yahye marka adiguma waxa aad leedahay wax qabadka aad soo tilmaantay ee mudane Ismail Omar Geele ka hirgeliyay muddooyinkii uu joogay ama xukuumayay dalkaasi Djibouti dadkaasi aanu ka hadlayna waxaad leedahay waa dad ayna u muuqan horumarkaasi masaasaad u dhigaysaa hadalka markaa miyaa uma muuqdo hadday u muuqato maanta waxyaabo badan iminka dikadooyinkaasi dikada doorale amba kale DMP containerka amba dikadooyinka kale soo socda maanta Djibouti dabarka waxay ku haysaa 100 milyan oo qof oo dhinaca Ethiopia oo hadaynu xitaa eegnaba suuqii kale IGAD ay Djibouti ka tirsan tahay ururka IGAD ay xitaa laftigeeda ka tirsan tahay ilaa 400 oo milyan baa loo lahaa oo ay dhinac kale kaga tirsan tahay oo ururka koonka leedahay ee Afrikanka kale ururka marka waxaa soo dhani maanta waddanka Djibouti kaabayaasha dhaqaale ayaa horumarkaasi caynka u fikiranaya oo u socda marka koob baa loo sii soconaya hoos loo soo noqon karayo maanta dib loo hadda loo soo noqdo maanta wadiga arkay waxa Djibouti agteeda ka socda dagaalada hadday noqoto Yamanta hadday noqoto Soomaaliya oo weli tegin Somaliland maanta ma sha Allah wata laakiin weli waa wadan ixtiraaf raadsanaya walaalaha iyo jaara iyo hadday noqoto wadamooyinka kale ee Afrika laftigooda waa gartay Yahye haddaan su'aal ku weydiiyo muddo badan baa Djibouti imika Canada ka tagtay muddo badan baa Djibouti joogtay campaign-kii baad ka qayb qaadatay waad arkaysaa xaaladda guud ee Djibouti bal adiga ahaan haddaan ku weydiiyo kalsooni intee leeg baad ku qabtaa inuu mar kale hantiyayo ama markii shanaad madaxweyne Ismail Omar Geele kursiga wallahi runtii waxaan aad iyo aad boqolkiiba boqol sidaan waxaan leeyahay aniga keligii ma aha maanta ummadda reer Djibouti oo dhan sidaan ku tilmaamay Mohamed isku soo baxay khaasatan dhalinta oo maanta haddaan ilaha guud ahaanba Djibouti la eego population-kayga maanta 1 milyan baan aan ka yarnahay 57% waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dhalin oo dhinaca 30 ilaa 40 ama wax ka yar hooseeya markaa runtii waxaasoo ummada ayaa maanta arkaya waxqabadka iyo horwadaagga madaxweynuhu maanta Djibouti iyo xukuumaddu iyo siyaasadda la fulinayo shaqo abuurku ay tahay kow ayaan oran lahaa shaqo abuurku ay tahay kow leeno shaqo abuur la'aan maanta hadday dhalintaasoo dhani bilaa shaqo yihiin iyaga laftigoodu fursado badan loo sameeyo oo dhinaca entrepreneurial ay iyaga laftigoodu ay shaqo abuur samaysan karaya oo la qacan qaban karayo xitaa lagu soo ay maanta Djibouti 14 institutionno
financial institutional different banks ayaa maanta Djibouti ka hirgala oo bangigu dambeeyay dhawaan la furay madaxweynaha iyo marwada koobaad Khadra Maxamed ay joogtay oo ahaa bangi nin maalqabeen oo ka soo jeeda Burkina Faso bangiga la yiraahdo International Business Bank marka runtii waxyaabo badan intii dhamaystiran maanta madaxweynuhu ku tali jiraa in la sii wado la rumeeyo insha Allah waa si wanaagsan Yahye sida aad tilmaantay ama baba aad sheegtay waxa aad runtii waxyaabo badan baad taabatay taageero koobaadna waad u tahay mudan Ismail Omar Geele dib waxaan ugu soo noqono jalaana mucaaradka diidan xukuumaddiisa uu garday ka yahay mudan Ismail Omar Geele bari dadkaasi Djibouti ku noolay waxa aad guud ahaan tilmaantay inay ogol yihiin gaar ahaan hadda markaan u soo noqono dad badan oo mucaarada ku sugan dibadda iyo gudaha qaar kamidaba waa ay dhaliilsan yihiin sida uu wax u wada aynu nimaadno waa ay dhaliilsan marka la shanaad inuu soo noqdo horumaraad ku tijaabiso waxaad tiri yani horumarka ha eegaan ma jirtaa qodobo kale oo dadkaasi aad indhaha ugu furi lahayd aad oran lahayd xukuumadda Ismail Omar Geele ku taageera ama eega haddaynu eegno dhinaca kalena Maxamed oo maanta dalka Djibouti amniga ka jira meel kale kama jiro qaaradan Afrika inta geeskan aan ku noolnahay ayaan taa kalena tusaale ku tusayaa horta dee runtii qofna lama qancin karayo walba fikrad buu leeyahay sidii fikraa nin walba hadduu maanta Djibouti ku kordhinayo wax ahla wa sahla waa wadanku cidna waxba looma diidayo aniga sida ila tahay shakhsiyan Yahye ahaan haddana maanta siyaasaddan aan ka hadlayo waxaa kaloo ka turjumaya Maxamedow dhawaan la furay wasaaradda arrimaha dibadda uu ka yahay safiirka ministerku ka yahay baan u jeedaa Maxamed Ali Yusuf la yiraahdo Global Djibouti Diaspora taasi waxay laftigeedu ku tusaysaa dadka diaspora dibadda jooga in la soo dhaweynayo la soo jiidanayo oo la leeyahay dhinaca investment hadday noqoto hadday doonayaan inay maanta maal gashadaan waddankoodii hadday xitaa doonayaan inay dhismooyin amba ka qayb galaan amba deehanti guri ay ka dhistaan ay dhul iibsadaan dee waa waddankoodii siday horumarkaasi iyo laftigooda looga qayb geli lahaayeen xitaa aqoontii iyo wixii ay dibadda kusoo barteen iyo waxay mutacallimnimadooda iyo waxay garanayaan ay maanta waddankooda intay la yimaadaan ay waddankooda horumar u horseedaan markaa siyaasaddu waa mid weeyaan nin kastana siyaasi maaha soo garanaysid siyaasadduna dee qof kastaba dee hadduu yidhaahdo baraha bulshada ninkan kamarada furto amba Facebook furto ayaan siyaasi baa noqonayaayo waxaan doonaan ka hadlayaa hadduu qofku doono inuu siyaasi noqdo way wanaagsan tahay ha kusoo dhaadhaco sida la yidhaahdo Faransiiska jiyaas ulekeeda marka ay loo soo daadin sida laga qayb galaan laftiga siyaasadda anigu ma maleysay ila tahay in loo diidayo waddankiisa inuu yimaado ka soo qayb galo haddii siyaasadda doonay siyaasadda way furan tahay hadduu qofku doono inuu ganacsiga way furan tahay hadduu business doono way furan tahay qof walba wuxuu doonayo uu samaysan karaa marka aniga saasay ila tahay qofka dee mucaaradku waa shakhsi waa sida aniga qof adiga oo kale laga yaabaa nin walaalkay waaba nin walaalkay amba qof walaalkay amba waa gobol walaashay laga yaabaa inaan isku diidno qodobo siyaasadeed laakiin kama dhigno inaan necebnahay amba isdiidayno maya dad Djibouti waa dal yar waa milyan bay ka yihiin sidaan kuu sheegay qof dadku way iswada garanayaan dadku waa wada jaar nin walba dee qofku gudda la ciyaari jiray xaafadii dadku ku wada qoreen ama iskuul bay wada tegi jireen ama kubadda wada ciyaari jireen marka dadku waa wada walaalo marka Maxamed oo tusaale u dambeeyaan kaaga bixi Djibouti waxa ku nool Soomaali waa Afar waa Arab waa Suudaan dadkaasoo dhan ayaa maanta ku wada nool marka alxamdulillaah rabbil caalamiin in labadaan ma haysanaa waxaan nolaa walaalahay aan ka soo qayb galaa
واسوان أحسن يحيى وها رنتي أينو كترنا وأينو قدر يردل استاجنا معارض كإيو حكومة جيبوتي مدوينكي وقدم بيي دلك جيبوتي معارض كما آنو تشكرين بدي معارضكم مركا أيو صوبحان قربها وحي كد عودان إن حكومة إسماعيل عمر جيلي وقردين كي هي إيو حكومة دي سو أي حريان هذا يقودها التقال والله وحي كود جرين دياسبرا دبدا كسوغان iyo bulshada reer Djibouti dibadda jooga gaar ahaan wadamada Yurub iyo North America hadaba arinta ay ku dacwoodaan ee ay tilmaamaan had iyo jeer amaba ay soo qaataan ee ah in Ismail uu xiraayo madaxweynuhu haday wadanka yimaadaan daliilna ayna ka fulin kareen gudaha wadanka oo ka cabsoonayaan in la xiro oo ay leeyihiin ma haysano xorriyatul qawl aanu ku dhaliilno xukuumadda khadaadkeeda aan ku tilmaano toosna aan ku daba qaadano nooma ogolo xukuumaddu oo hadaan hadallo waa la xiraya arintaasi wax ma ka jiraan والله runtii muxuu Maxamed oo maanta deewaadiga arkaya waxaan labadeenu anigu waa Djibouti oo joogaana Canada joogta marka dadku way wada hadlayaan marka waxyaabo badan maanta internet waxyaabo badan buu ayuu ka dhigay fudayd marka fudayd waxaan ka wadaa waxyaabo badan baa la wadaagaa marka qofku maanta imika example haddaan ku siiyo maanta wadanka Djibouti halka maanta wadankan aan joogo Djibouti leedahay waa wadan sharci ku socda oo maamul leh oo kala dambeys leh oo xukuumad leh marka taasi tusaale waxaan kaaga soo qaadanayaa wasaaradihii iyo maxay ahaydeen executive branch iyo legislative branch waxa weeyaan waa assembly marka halkaaba qodobadii iyo wixii oo dhan lagu ansixiyaa marka maanta wadanka Djibouti waa wadan sharci marka nin qofna la iska xidhayo aniga lama ahayn qof inta loo tago la iska xidhayo oo wadan sharciyeysan qof kasta sharciga laga maraa sharciguna maxkamadaha jira maxkamadihiiba qof halka kiiskiisa la geenaya marka qofka hadda dambiga lagu haysto qofku dambiile yahay anigu maanta hadaan tusaale ku siiyay Yahye ahaan hadaan dambiile noqdo oo intaan gaariga ka haysto aan qof halka ku dilo amba aan dad eedeeyo aan baxsameeyo maanta sharcigiiba marka ay qabanaya oo hal ay la hormaray courtka oo halkaaba go'aanka inuu ka soo bixi marka qof kasta waa sida qof kasta oo muwaadin oo reer Djibouti waa sharciga ayaa u dhaxeeya qofka iyo xukuumadda soo gaaraysi marka cidda wax tabanaysa sharciga ayuu lagu tiigsanaya iyo kuma laftigu sharciga bay tiigsanaya hadday noqoto waxay doontaba ha noqotay sharcigaasi ayuunba laysku qabanayaa oo halkaanba qofkii dee hadduu qofku marka dambiile noqdo dambigiisiiba lagu qaaday hadduu qofkaasi dambiile ahayn dee halkaanba kiiskiisaasi halkaanba ayuunbu ku istaagay laakiin shakhsi ahaan runtii qof muwaadin oo laga leeyahay war wadanka hayman amba soo galin amba wax noocaasa aniga runtii aanu maarig mana maqal laakiin waxa sheegtay baraha bulshada qof kasta oo maanta dadku dhan computer iyo waxa wada fadhiya Facebook baa wada fadhiyayo nin walba halka uu ka sheeganaya eeda laakiin hadduu soo dhaca hadduu wadankiisii yimaado dad alla sidan ku tilmaamay maanta dawladda waaweyn ayaa maanta Djibouti joogo isku haya marka qof dhan oo muwaadin oo reer Djibouti si wadankiisii uu yimayn karin aniga taas waxay la tahay xoogaa waxaan aqal gelin karin waan gartay hadaba Yahye waxa aan dul istaagaynaa Djibouti baanta sida aad tilmaantay waa nalka ifaya mandaqada geeska iyo qaaradan Afrika ee aynu ummadda Soomaaliyeed ku naalooto guud ahaan kadib markaad u fiirsato shirarka iyo runtii waxyaabaha Djibouti ka dhaca adiga ahaan Yahye dhalinyarada reer Djibouti ee runtii aqoon-yahanka ah ee raba in ay kaalin mugla ka ciyaaraan horumarka wadankooda ayaad ka mid tahay aqligana saaxiibka waa
marka hadda baad eegto Yahye mandaqada geeska ee Djibouti ku dhex taalo iyo waxaan ay aaminsan yihiin dad runtii reer Djibouti oo ay runtii ka mid ah shacabka Djibouti ara ay u qabaan qaar xukuumadda Djibouti ay mar walba la soo istaagaan dhaliilo ay noqoto aflagaado haday noqoto macaarid xadkii ka baxay oo ay ereya ka baxsan siyaasadda isticmaalaan dadka aynkaas markaad aragto waliba shacabkii reer Djibouti ahaa iyo mandaqada Djibouti waxaad ka socdaa marka aad barbar dhigto maxaa kaga soo baxa أنا والله رنتي ولكن محمد وحنا نبض وشيء آدي عالية نبض لعاني وحنا مصر نبض وشيء آدي عالية إن نبض وجوه نبض طلق الويل عشرة عدو اللي يستيل عليه مع ولالك إن مانتا أسفتي دول قفلنا مواد أو تين of isku wadana isku calan isku ciid taas waa mid weeyaan marka khaasatan dadka reer Djibouti qofka dadka halkan jooga ee wadankooda jooga ee cabanaya ee tabanaya cabasho waxa jira maxay loo maro hadduu qofku cabanayo waxa jira member of parliament dadka qof xaafad kastaba dad baa ka soo baxa oo ka wakiila oo dad baa ka mas'uulsan sheegay oo national assembly ga fadhiya assembly national ka la yiraahdo oo dadkaasi iyaga ayay ka yihiin ayay matalaan for example marka aan waxaan xasuusanayaa Canada waxay tahay laftigeedu waa same thing baa ka member of parliament ka hadday dhibaato ku qabto hadaa wax tabanaysi hadaa wax ka sheeganaysi dawladda hadday wax ku haystaan وأوتيسا وفكاسي وكل قبل كذا وكل قبلنا أنتي أود تحي هذي شغرانيس تحي هذي تحي عافيمات هذي واحد دون طبعا نقطة أنت قصص قصة لكل إذا ضد كذا إيه كذا يضد يقولوا يقرب هذا يورع لها يضد كذا يشيل سو بالمس مركا شيء هو أنو أربع كينها والنبض walaalkeeyo maanta waa la arkaya waxa ka socda wadooyinka kale wadamaha gaar geeska Afrika inta nahay Yamanta Soomaaliya iyo wadamaha kale Afrika maanta Djibouti waa beam of light waa meel iftiin ka baxayo oo wanaagsan oo dadka shacabka reer Djibouti dad aad iyo aad qalbi furan yihiin dad wanaagsan yihiin تجارة سواء كوشي محمد ما تضطر أي وحول وداعان أي وحول قصدان لكن هذه النقطة ضد بدا وحصل شيء أو بلايك الشيء أو له واصلة محمد كتير ماشي سدم بين نقطتين كله ولا لها يو فينيسولا ترى كله ياركا كله واحد قبطة هذا إنه في ماشي اللي وحسبت البندورين هذا قف كوي دايو وحلو بيسمو كردية أنا ما كان أركي كوفيد كي ما كي كوفيد كل عين حاسمي وحنا تتكلم تيجي كندا وحياة مش بيسوي بيجي وحنا كان إن جيل كي وحياة كده لو بعنا أنت هو الجدار لين ده ممكن مركز تطلب بجرا وحياة بدن بيتمن كران association ayay dibadda inta ka furaan lacagaynta ururiyaan ayay soo gargaari karaan walaalood hadday xitaa noqotoba dadka laftigu ay xaafadaha ka yimaadeen dadkii deganaa agooma kulliga iska jira xaafadaha ku nool dan yar leh oo dad caruur haya waxyaabo badan baa jira Maxamed wax badan bay qaban karayaan wax badan bay soo fulin karayaan inuu mashquul ma markasta oo la yiraahdo siyaasad waa sida hebel waa sida heblaayo waa sida way dhici karaysaa soo darmaysi laakiin haddana wax qabad layn la muujiyo way wanaagsan tahay oo la dhaliilada disinta dhaliil wax qabo laakiin wuxuu ma dhaliilaya wax ma qabanayo asida laftiisa taa ka soo waan gartay waa si wanaagsan Yahye markaan u soo noqono
وين وإجنو ولي إنه كبحين حالة دي معارضة مدام دورش أي صعطه أولي هنا اللي بتشرب بيش أفرادنا دورشوا دعاش السجال كده هذا ديك بتربانتي هذا بيحيو وحق dadka mucaaradka qaar ama xukuumadda Ismail Omar Geele ka soo horjeeda sida ognahayba caalamka guud ahaan iyo mandaqada ay ku noolnahayba dad waxay u kala baxaan mucaarad iyo muxaafid in xukuumadda taageersan iyo indiidan hadaba dadkaasi diidan xukuumadda Ismail Omar Geele oo garwadeen ka yahay ama dhaliilsan had iyo jeer waxa ay tilmaamaan markay doorasho soo dhowdahay ee olole lagu jiro ama doorasho bilaamayso in Ismail dad uu soo magacaawdo oo hebel iyo hebel uu ka dhigto uu keento kuraasta mucaaradka say u buuxiyaan taasina ayna jirin mucaarid la loolami kara madaxweynaha ee ay tahay u dhabar taabasho Ismail maxaad arintaasi madaxweynaha kaga difaaci kartaa maxaad se ku beenin kartaa horta runtii siyaasaddu amba doorashadu ma aha marka ay doorasho dhacayso awlu ma garanayo daan dadka siyaasadda ku jira ama dadkani doonaya inay hoggaanka u qaadaan dadka ay yiraahaan waxaan doonaynaa inaan way mutaysan waa sharaf weeyaan inaan maanta qofku uu yiraaho waan hoggaanka dadka u qaadayayo waan tan baan qabanayaa sidan baan qabanayaa sidan kalaan yeelaya laakiin siyaasaddu maxamedow guud ahaan maaha markay doorasho timaado waa 4 sanadood inta u dhaxaysa ayaa laga soo shaqeeyaa oo barnaamijyaashaada la soo bandhigaa oo waxa qabanaysi dadka loo sheegaa oo waxa ma sameynaya kan kala sameynaya oo la sii abaabula oo dhinaca sharciga hadda u baahantii la soo maraa oo hadda u baahantii ina xisbigaagu uu deesi kaco oo dadku ku sii bartaan halkaaba laftigeega laga sii bilaabaa laakiin sanad kaste amba doorashadu markay timaado la yiraaho waan waa hebel baan waxaan doorashada inaan ka soo qayb galo aniga runtii taasi laba muuqato 10 sanadood ku dhowaan siyaasadda Canada aan ka soo shaqeeyay Loola baan soo shaqeeyay Mohamed oo soo dareemaysid aan sanadkii 2019 kii u dambeeyay waan soo joogay labadeenu marka haddaan tusaale yar dadkaasi way ka sii shaqeeyaan 4 sanadood wax kala ma qabtaan intii dadka u wadaagayaan mooyaane hadduu qofku xilka ahayn member of parliament ahayn intaa ka hor qofkan kale ee doonaya inuu loolanka la galo shaqadu sii galaa siyaasaddu sii galaa uu sii shaqaysta xaafadii uu ka sii shaqeeya dadkii uu ka sii shaqeeya halkii uu lacag buu urursada qof aan dhaqaale hayn qof aan waxba hayn qof aan dadkii hayn qof aan dad soo saari karin marka eedwa very easy hebel baa meesha la saaraya heblaaya dhabarka laga taabanaya hebel baa waxaan sameynaya wax caadi weyn qofku ku hadli karaya taa laakiin shaqadii looga baahnaa waa in qofku soo qabto oo soo gala siyaasadda oo intaas oo sanadood ku soo jiro aan dad baan garanayaa 3 mandate la waaya ka shanaad iyo ka saddexaad hela why kama helin weligood because we are missing siyaasaddu waa aamin weeyaan waa qodobo aaminsantii oo waxa aaminsantii oo waxa ku kacay sida dadku ku leeyihiin waxa ma sameynaya in kala sameynaya tiiba dadkiina hogaankii ku haysan maanta haddaan ku soo noqdo madaxweynaha Ismail Omar intii sanad kastaba uu hayay mar kastaba waxba soo qoray mar kastaba waxba la fulmay maanta Djibouti halka ay taagay waxa laga soo bilaabay ninkii garanayo ma garan 99 oo dagaalo sokeeyay ka dhici gaareen wadankan ay dad badan isqabsan gaareen oo ku daadan gaareen oo Djibouti Soomaaliya Djibouti maanta maxaa u malaysaa haday Djibouti sida Soomaaliya ma tahan leh subxaan rabbi alcadiim marka aanu intii walaalahayo waxaan oran lahaa nabadu waa guud nabadu aad iyo aad bay u qaali tahay waa shay qaaliya qofka siyaasadda doonay siyaasaddu way u furan tahay ani siday la tahay uu ka soo qayb gali karaya laakiin mid ogsoonooda waana dhaqaalo diyaar u ahaatay
iyo dadka inaa soo saartiin waa active yani marka waa labada shay xamido waa si wanaagsan haddaan su'aal kaa weydiiyo dhanka kale weli isla mucaaradkii iyo xukuumaddii baan ku jirna maadaama doorasho ku dhex jirno doorashadu waa marka lagu jiro runtii xasaasiyadeeda ayay leedahay u gaarka ayada imika ahaan Yahye ma jiraan xisbiyo aad tilmaami karto oo la loolamaya Ismail Omar Geele waqti xaadirkan حسب جبوتي جونا ما جرودي حسب يالبا جرا حسب ما جرا وما اسمه سوشيال الحين حسب يال معارض ويجوغان وطن ويجوغان لكن سأقول لنا محمد وقالوا باهي ويقولوا باهي من ضد الصوص ومن ضد كذا عدالة سياسية ومن ضد آمنة سياسة قفل ووضع وحاسو دني وسامي كل هذا marka doonaysiina qofkaaga kor u soo qaadida kaleeyo wariya maxay hayeen bulshada reejibkii waan soo sharaxaya juleed khaliqoondiga waxaan doonayaa inaan nin noqdo maanta madaxweyne inaan doonayaa inaan nin noqdo Ismail Omar dayal ku soo korin meesha si fudud ku yimaad soo talaabsanaya ya waan inuu ku sii goortiga kulaha wadankan dagaala soo meeyay waxyaabo badan baa soo maray wadankan Dhamaystiran la iska jibiyay ilaa iyo maantadani wali inkasta ay meel joogan hadana dhinacu Dhamaystiran meel ku dhinacu ka haystaan marka qofkii garanayo baa garan kara maanta muxuu ahaa qof siyaasi mucaarada qofka siyaasi mucaarad ku sheegay mucaarad baan oo halkaan jooga waxaa la soo diyaarso waxaa la soo duubo حالة وضعها. Okay. واسو ناكسن. Yahye. waxaan jecelahay inaan weydiiyo. haddii aad leedahay dalka Djibouti mucaarad ma jiro waqti xaadirkan. cid sharaxanina ma jirto. hadalkaagu ma wuxuu u dhigmayaa siyaasiyiinta Djibouti ee dhaliilaya Ismail Omar Geele amba xukuumadda amba dadka siyaasiyiintu iyaga xilkoogii gabay oo aan is soo sharaxin oo dalkii iman ma iyaga xilkoogii gabay ayuu hadalkaagu u dhigaymiyaa absolutely absolutely boqolkiiba boqol qof ana maanta wuxuu aamin ka sheegtay intaasoo dhan buu isku keeni karin maanta dee runtii in la yidhaaho isma soo sharaxi karayno amba wala la diidaya amba sidan baa jirta amba sidan baa jirta amba eed meeshii olin la sheegto aniga say la tahay qofku wadan kasta oo mucaarad uu jiraa afrikada oo dhan way jiraan mucaarad dalkan aan dariska nahay Somaliland maanta xukuumadda Muuse Biixi Abdi laba xisbi oo kale ayaa mar kasta ay furtaayeen soo garanaysi marka xisbiyaashaasi dad taageeray leeyihiin dad baa taageera oo shacabka taageerayaasha marka ay una hadday taageerooyinka la soo baxayaan way imanayaan taageerooyinka la soo baxayaan marka nin kastaba taageerihiisu ayuu taageeraa mar kasta xitaa xisbiga kale qofka kale taageerihiisa ayaa xitaa soo jiidan karaysa why because siyaasadda ayaa qofka kale u bisil wuxuu jecel yahay wuxuu doonayo inuu maqlo dad raadi maanta anigu shaqo abuur inta leeg baan sameynaya sidoo madaxweynuhu maalintii dowladdu shanta kun ee dhalinta shaqo abuurka loo sameeyay intaasoo mashaariic baynu bilaabaynaa waynu dhammaystiraynaa waa la dambeeyey intii haddayna hala sii wado waa la dhammaynayaa marka maxaa kaloo maqan in halkii lagu istaago la burburiyo wixii amba qof siyaasadiisu ay maanta halkaa ay maanta wadanka u Djibouti joogo laga sii wado oo soo sharaxo ilaa anigu maanta diyaar baan lahay dhaqaalihii diyaar baan lahay taageerayaasheedii waa kuwan let's go wana dhaqaaqayna ahlan wa sahlan waa si wanaagsan haddaba maadaama aad tilmaantay inay xilkoogii gabeen oo dadkii aqoonyahanka ahaa dadkii siyaasiyiinta ahaa
dadkii la loolami lahaa madaxweynaha amba xukuumadda in ay tilmaantayna xilkoodu waa sida hadalka u dhigtay haddaba dadka iyagu kuwaasi ka dambeeya aaminsan in ay xukuumaddu ka hor taagan tahay dadkaasi maxaad oran lahayd iyaga أنا هرتو قلتي محمد وكبور تفقع حلقة دونية أو أغنصي ضد أغنصي لما ضد متعلمين ويجي وحبرتي وحقرنا يا absolutely لكن السياسة ما يقهر لنا هذا ما كمان هلا وكمان هلا إنه isla garanaya Yahye siyaasadda aynu ka hadlaynaa laakiin dad baa jira iyagu siyaasiyiinta taabacsan taageersan hadday mucaarad yihiin siyaasiyiintooduna u sheegeen inay xukuumaddu diidan tahay ka hor taagantahay inay Jabuuti ka bilaabaan mucaaradnimada adna waxa aad tilmaantay kuwaas inay yihiin kuwa xilkood gabay haddayba xilkood gabeen dadka kuwaasi ay ka dhaadhiciyeen amaba ay u daalaceen inay xukuumaddu ay ka hor taagan tahay garadanka Ismail Umar Geele Jabuuti inay yimaadaan halkan ka bilaabaan siyaasadda dadkaasi iyaga maxaa aad u sheegi lahayd aad u tilmaami lahayd ay siyaasiyiintaas saa ku yiraahdeen بيد لفتوه ويقضيه واحد يقضيه عندنا السياسة المدية سجوتي إن كسر أي كراسة يوصل وحمامه كأي يرتاحي سيرو جارة أو جميستي بريدي وسيستم ما سيستم ككندا أو كلا ألكن سيستم كا بارلمان سيستم ككندا مع ويستمنستر كا لكن هو سيستم أسامبلي ناسيوناليو iyo reereed iyo waxyaabo noocaas ah marka dadkan xitaa laftigooda aaminsan qofkan kale siyaasadiisa iyaga laftigooda ay abaabuli karaya wax wala qaban karaya association samaysan kara oo halkaasi loo ka bilaabi kara oo wax urursan kara oo isku iman kara waxyaabo badan bay qaban karaan Maxamed waana kule marka وهذا تدخل بالسليين وحي ربان وقرنيس مركا أنوصل عن هذا كله جيو ونقفوا الربا وبسلاده ودونه يوميراه ونقول هالكلام الصعبة وهاجريان شيء سنة قتل مامو أي حد يكون راعيان يكون راعان حد يكون جيدان لكن ما تجيبي ووضع الشرعية وضع معها لسه قبصنا يوم ووضع الشرع كسرة ووضع أنت أصل دولة تحتاجين هذو ما أنت وضع كان الشرع كسرة وما ملايو إن ما أنت وحصل دولة أي رمسك في الدولة هي مركز السياسة مدحوينه كقصة قبوا قصة السنة أو executive branch كانوا مدحوينها إسماعيل عمر إلى أيو وزير ده وزير كعلمها الدولة هذا وزير كعلمها الدولة محمد علي يوسف iyo runtii wasaaradda arrimaha dibadda iyo sida siyaasadda Djibouti loo dejiyo sida loogu maamulayo ay maamul wanaag tahay oo horumar tahay oo dhinaca dhaqaalihii iyo wixii kalena la isku soo wada xirayo oo kaabayaasha dhaqaalaha sida tartiib loogu qodiyo marka waxaan oran lahaa taageerayaasha dadka mucaaradka ee Djibouti jooga دوا waxay aaminsan yihiin qof kasta wuxuu aaminsan yahay isaga ra'yigiisa Yahye waxa aad runtii noo sheegtay inay iyagu taa aaminsan yihiin shacabkana waxa had iyo jeer jiheeya oo runtii tusa wanaaga iyo wadada loo socdo iyo waxa wanaagsan ee dalkaasi ka jira kolba xukuumadda garwadeenka ka ah hadiiba Ismail Umar Geele mudooyinka ugu dambeeyay oo xukuumaddan garwadeenka ahaa adna aad tilmaantay wax qabadka uu gaarsiiyay maanta mandaqada uu ka dhigay nalka ifaysa Djibouti sidee buu haddaba Ismail iyo xukuumaddiisu dadkaasi ku soo jiidan karaa maadaama dad muwaadiniin reer Djibouti ay yihiin inta aanay fogaan lahayn dadkaasi sidee buu Ismail ku soo jiidan karaa oo uu samayn karaa inuu dadkaasi ka dhaadhiciyo in waxa laga dhaadhiciyay ay been tahay dalkoodana ay hoos weegaan maxaa Ismail talaabooyinku qaadi lahaa maxaa ay tahay kulata aniga runtii maxamed oo taas waa su'aal aad iyo aad muhiim ah waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan walaalahay muwaadiniinta reer Djibouti
سلا يراها أفكار إنجليزية this franchise نعم قفكم ما أمسنين إن حكومة ديسا أم بأمة أمسنين دولة دامر كارو خالصة أي يكون نفتو بس كده حكيان أين كم ممكن أنا أدام تصالح الكسيو من عكنا ذا إن إسبيانش الليبرال كان عم بكسيرفاتيف ده dadku waxbay kala aaminsan yihiin dadku muwaadiniinta amba shacabku amba citizenku waxbay kala aaminsan yihiin midba aamin buu leeyahay ninka qodobada ku fadhiya ninkan kalena qodobada buu aaminsan yahay marka haddaan ku soo noqdo Djibouti walaalahay ana aaminsanin xukuumadooda ee dhaliilaya waxyaabo badan baa jira ay ku arki karayaan hadday maanta cabanayaan ay leeyihiin shaqa la'aan baa maanta waddanka ka jirta وارون أدون كلهم بيشتغل على كتير محمد أدام روتا واسكو شغل حتى كندا أنا employment rate 10% قها ما عنده يبغاش وصير لا داعي بقوقا مرة إنك السيدة يسلك الشعب ما حلو unemployment كوفيد 19 كيلا قبصدي دقاليان شيء أدون كلهم مسميه يورو كلهم وادي أركي الباب بدل حدا ليه وادي أركي ملك استوحى كصعود الريسيزم وحى كصعود إن إسلاموفوبي بقى الصعود ولديد تبكي إسلامكي وليبنا الشخصي مدوتي وحاصل لما سوق الرأسن كديد الجوتي سو قالوا لي شيء مركا ضدك وطن كي مركا ضدك جيبوتي جوبه ولا جيبوتي أنا اسكت حركي جيبان نقول لها إن حكومتها أم سياسة حكومتها يقولوا حياة بدنو لقبتها كده waxyaabo badan oo muuqdada la taaban karay baa ayay jireen ka soo qayb gala wixii maqan intii maqanna muxuuha hala tuso hala tilmaamo sida loo tilmaami karayo maanta qofku hadduu bilaa shaqo yahay programyaal badan baa la furay ka hor imika dee xoogaa dib loo celiyey oo qofku markuu intuu entrepreneur yahay hadduu doonayo in iskii u shaqaysto meel furto lacag dowladdu amaahineysay dowladdu lacag bay siinaysay marka qofku uu ku shaqaysto taas waa wanaag weeyaan taas waa wax fiican waa horumar weeyaan qofkan maanta bilaa shaqada tii kale caafimaadkii oo markastaba la improve garaynayo oo saan ku sheegay halkan universalka la sameeyay iminka oo madaxweynuhu maalin weyn oo dhagax dhigay hospital weyn oo insha Allah la dhisi doono marka kaabayaasha dhaqaale fursado badan oo shaqo abuur ka soo baxa oo imikadan ka soo baxay oo jira kuwa kale cala la soo socdanay si badeeyeen marka inta badan dadku waxay qabtaan haween waa shaqo la'aan waana run weeyaan qofku hadduu la shaqeeyo wuxuu isku haystaa inuu de waxba qaban karin shaqooyinka badankoodna waxay sometimes u baahan yihiin xirfad bay u baahan tahay ama farsamo u baahan tahay hadduu qofku maanta u baahan yahay inuu technical school ama waxyaabo soo kordhisto marka xukuumadda iyo dowladdu way garab taagan tahay hadduu doonayo inuu farsamada gacanta aad iyo aad ku muhiim oo maanta aad loogu baahan yahay hal wasaali habartaan ugu shaqaysan karayaan maanta ugu shaqaysan karaan mechanic ha noqoto dhismo ha noqoto waxyaabo badan ha noqoto waxaasoo dhan markaasi anu saasaan oga laha maxamedo waa si wanaagsan inta aynan gudagelin dhalinyarada waxaan jeclahay inaan gebagabadii mucaaradka iyo doorashadan ka nimaadno deetana aynu yara qadar dhowr su'aalood aan ka jaleecno dhinaca dhalinyarada iyo haweenka laftooda haddaba su-aasheeda ugu dambaysa doorashooyinka amaba mucaaradka iyo xukuumadda waxaan runtii jeclahay inaan kaa weydiiyo in badan baad Djibouti ku sugnayd kadib markii aad Kanada ka tagtay muddooyinka ugu dambeeyay Djibouti aad joogtay saasaad u eegtay dalka guud ahaan Djibouti dhaliilahaasoo dhan mucaaradka uu tilmaamayo dalka Djibouti marka aad Yahye u eegto mucaaradkiina aad aragto dhaliilaha iyo runtii xukuumadda ay u jeedinayaan adigu gaar ahaan aad madaxweynihii ku xidhan tahay madaxweynuhu ma dareensan yahay dhibaatadan ka haysata mucaaradka iyo runtii waxyaabahan ay u soo gudbinayaan ma yahay madaxweyne Ismail Umar Geele mid la socda dhaliilahaasoo dhan boqolkiiba boqol siduu loola socon aad iyo aad buu loola socdaa waa iminka adigoo idhaahaa waa aabuhu lama socdo gurigiisa maanta waalidku ama aabuhu
وأنا كور قبول جيسة واحد كناعي سو قريبس نحنو إن ما أنت إسماعيل عمر وأبي تلك ومدحونيه at the same time they say ilaa inta qof kale oo sii wadaya la helo ayaa maanta ayaan odhan lahaa anigu shakhsi ahaan iyo ahaan waa ra'yigaan qabo weeyaan sidaan soo tilmaamay weeyaan marka aabuhu ka warqabaa gurigiisa aabuhu ka warqabaa wadankiisa uuna garanayaa cabashooyinka wala socdaa suu la socdo kolay wasiiradu sheega كل مستقل نفتيسه ما عنده وين أنا متبقى وهاي سنة كيمي كان صورة أفريقيا بيسميه واحد يراها طولين جنرال وعن عمله صومري قبله وضربه صومري أي ده محمد قبله وضربه صومري قارقار بو ولا فريستي قبل كسته ميال كسته طوله كسته ويلا توكسر dadkii dareenkoodii uu soo dhageystay maxaa inaga maqan maxaa u baahantii dadka shacabku isku soo baxay waxay keenayeen maxay madaxweyne kan baa naga maqan iskuul baa halkan naga maqan madaxweyne halkan waxaa naga maqan waxaasaa naga maqan boobiye hadday noqoto gobadii dadamiskii wax lagu bartay kuwaasaa naga maqan madaxweyne kuwanba waxaa kalaa naga maqan madaxweyne farmiyey waxaa naga maqan meel lagu iibiyo ama meel maxay dawooyinkii dhakhtar baa naga maqan marka kuu soo karmaya caawa runtii waxyaabaha badan ee dadku tagteen ay ka caawinayaan ilaahay waxaas oo dhan baa naga maqan madaxweynuhu u dhageystay uu markuu xukuumaddiisa amar ku siiyey ay ahayd waxyaabahaas oo sidee wax looga qabanayaa wax looga qabanayo waxa weeyaan dadka lala socdo dadka la ogaado xaaladoodu siday tahay marka kaa weeyaan aabbo dalkiisiyo gurigiisa ka warqaya saasaan ku tilmaami lahaa maxamed maqashaa si fiican baan ku maqlaya waxaan jecelahay inaanu qadar yara dul istaagno haddaba dhanka dhalinyarada dhalinyarada dalka Jabuuti badi waxa ay yimaadaan qurbaha waxa iga soo baxaan dalkoodii shaqo la'aan taasoo ku dhaliilan xukuumadda Ismail Umar Geele muddooyinka ugu dambeeyay Yahye arrintaasi maadaama madaxweynahana aad runtii xogtiisa hayso maanta ninka ololaha ugu jira campaign-ka doorashada mar kale hantiyo aad ka mid tahay daliilaha ay dhalinyaradu soo jeediyeen shaqo la'aanta dalkooda uga tagayaan iyo cadaadiska xukuumadda ay ku samayso wax ma ka jiraan wallahi runtii maxamedow saanku mar hore ugu tilmaamay shaqo la'aantu meel kasta ka jirta adduunka qof maanta Canada tagay ama Mareykanka tagay ama Europe tagay igama oranayo markaa arba shaqaan helayaa ama shaqaan ku kaarba ku fadhiyaa taa waan garanayaa anigu qofna igama oran karayo ku kaarba wax baan helayaa anigu qurbaan joogi jiray weli way ku noolyihiin carruurtoodu way joogaan dhowr iyo soddon sannadood waan garanayaa sida qurbuhu iyo sida fikraddu dadka ajaanibka markuu qof waddan kale ka yimaado shisheeye uu tago taa aad baan u garanayaa maxamedow marka qofka maanta Jabuuti intuu ka tagay u tagay waddan kale shaqo waa mid weeyaan hadduu shaqo ka helo alxamdulillah ilaahay ha u barakeeyo laakiin inta badan dadku anu sidaan ka warqabo sidaan u garanayo sidaan u tilmaamay in badan baan deganaa Toronto xitaa deganaa magaalo weyn oo la yiraahdo oo xitaa magaalada dad waxaa jiray ما عرفت جبتي ضد كلو أجانب كباكستاني ضد متعلمين وبيجدي هايست وماستر وأنت دولة بقى هايست وتكسيال ولا شو قرروا يصير مركها شقادو مركز ديجيتا مركها قف ودك يسدو بسم الله يراهو إلهي وبركينا ما أنت
aniga qof kastaba risiqiisa meeshuu ugu jira ilaahay ma garan karo ilaahay ma garanaya raxmaanka abuuray ma garanaya maalintii qofku dhashay ilaahay maalintii dhamanayo risiqiisaasi uu qoran yahay ama ha u doonto qaarad Yurub ha u doonto ama qaarad North America ha u doonto ama waddanka meeshuu ku dhashay ha fadhiyo risiqiisu markastaba tawakkaltu cala Allah waa halkii laakiin anu taladaydu waxay noqon lahayd qofku hadduu waddankiisa bismillah ilaaho waddankiisa joogo waddankiisu wax tari karaa wala waddankiisu wax ka qabsan karaa wala waddankiisa ayuu ku yahay qof taasi waa aaminsanay waddankiisu buu qofku ku noqdaa sidoo qof lagu noqdaa qof kastaba qof kale uu garanayaa soo garanaysid qof uu garanayaa hadduu maanta uu shaqaaleeyo hadduu meesha shaqaaleeyo waan gartay waa si wanaagsan waa si wanaagsan adoon taa ka tagayn dalka Djibouti waxaynu ognahay guud ahaan tirakoobka marka la sameeyo sanad kasta inuu ku dhawaad imika milyan oo si dhaaf guud ahaan dalka Djibouti markaynu ku hadlayno dadka ama ummadda ku nool dhaqaalaha soo galana marka la qiyaaso dhaqaale intaba ku soo laamaya ayaa la qiyaas sida ay haddaba dadkaasi aaminsan yihiin adigu ma aaminsan tahay Yahye in dhaqaale ku filan waddanka ay jirto hase ahaatee dhaliilaha ay jeediyaan ay tahay mid xukuumaddu ay garabsatay oo aynad dhaqaalahaasi mid ay ummadaas wax ugu tarasacaan ahayn taa adigu ma aaminsan tahay maxamedow mid baan kuu sheegayaa GDP-ga maanta waddanka Djibouti waa sidaan kuu tilmaamay koobka dhaqaaluhu kor buu socdo hoos uma socdo alxamdulilah rabbil caalamiin xukuumadduna sidaan anu intaan garanayo anu xukuumadda anu kama anu wasiirmay kama la shaqeeyo xukuumadda kama la shaqeeyo wasaaradaha kama shaqeeyo soo garanaysid anu muwaadin sida dadka kale muwaadiniinta reer Djibouti ma lahayn ya marka dowladda waxa soo gasha waxa ay dowladdu soo bandhigto soo gala waa wax loo qondeeyo wasaaradooyinka wasaaradahaasina sidii loo sii dhaadhiciyo oo sida maamulkaasi la isku dabawado ayaan anu shakhsi ahaan ayaan ogan lahaa marka intaa in ka badan muxuu ahaa dowladdu adiga arkay dadku hadday waxay ku dhaliilayaan amba ay leeyihiin sidan baa jirta sida kale jirta waxaan baa jira wax kastaba waxay u baahan tahay buruuf bay u baahan tahay marka runtii anu saasaan aaminsanahay waan gartay ugu dambeyntii gunaanadkii waxaan jecelahay dalka Djibouti ayaad ku sugan tahay imika doorasho ayuu gelayaa madaxweyne Ismail Omar Geele markii shanaad weeyaan campaign-kii amba waxa la dhahaa orolihii ayaa haatan ka jira dalkaas oo adiguba aad runtii qayb lixdan ka ciyaarayso sidaan ognahay dadkaasi population-ka guud ahaan dalka Djibouti ku nool ee ololahaasi ku jira marka aad qiyaasay Djibouti inaad ku sugan tahay mucaaridka la loolamaya inaad og tahay Djibouti madaxweyne Ismail Omar Geele markaad eegto maxaad isleedahay kaaga soo bixi karaa Ismail og aqlabiyada miyuu ku heli karaa ciriiri miyaa la gelin karaa ku shubasho miyay dhici kartaa inuu ku shubto maxaad aaminsantay horta sida maxamedow kuu sheegay ka hor aan ku celinayo aan carabkana ku adkaynayo waddankani waa waddan sharci lagu maamulo weeyaan marka qodobkii ugu dambeysay ka dhawaajisay waxaas waxba kama jiraan labada qodob ee hore haddaan soo noqdo runtii qof kastaba ciduu doonayo ayuu u foteeyaa soo garanaysid marka maanta shacabka reer Djibouti qof kasta oo muwaadina oo kaadkii footadii ayuu qaadanayaa oo maanta qof kastaba uu qaata dadka badanku shacabka reer Djibouti ay qaateen oo intii dhamaystiran dadkii kalena la gaarsiinayaa oo laga leeyahay waa diyaar kaadkii kaalay oo qaata sidoo qof kasta oo muwaadina uu guto maxay muwaadinimadiisa soo garanaysid Yahye ahaan kaarkayga anigu waan qaatay waan haystaa marka kaarkayga baan ku footeynaya cidaan u footeynayana aniga
ayay khusaysaa marka waxay ka dhigan tahay qof kasta oo muwaadin oo reer Djibouti aan waxaan ku leeyahay lahaa inay kaarkooda qaataan number 1 marka ugu horeysa muwaadinimadu waa taawiyaan marka labaad ay codeeyaan inta doonaan ha codeeyaan soo gareemaysid qofka laguma imboos gareey lamada war hebel waxa qofka oo codeeyo ma jirto wadankan waa wadan sharci wadan dimuqraadi waa wadan la maamul leh wadan la kala dambeeyo wasaarada leh muxuu xildhibaano leh baarlamaan leh executive branch leh marka waxa soo dhalay maha xalay iskamiin overnight iskamay marka institutionada oo dhan waxay u joogaan institutionada waxay ilaalinayaan wadanka marka ninka soo muwaadin maanta hadduu kaarkiisa qaato waa si wanaagsan gartay waa si wanaagsan Yahye ugu dambeyntii iyo gunaanadkii dad fara badan oo reer Djibouti ayaa guud ahaan caalamka imika daawanay si toos hadii noqoto studio idaacada CKC iyo telefishinka home cable TV si toos ah live laga daawanay dadkaasi reer Djibouti guud ahaan caalamka daawanaya maxaa aad kaga tagi lahayd maxaanad u soo jeedin lahayd adigoo xaaladda guud ee dalkana uga soo warramay doorashada lagu jiro gunaanadkii gabagabadii dadka reer Djibouti ama muwaadiniinta ama siyaasiyiinta ama aqoon-yahanada maxaa aad kaga tagi lahayd soo jeedin runtii salaam ma kaga tagi lahaa salaam kashkii laabta ka soo go'day waxaan kaga tagi lahaa oo kale maanta wadanka Djibouti uu wadan alxamdulillah rabbil caalamiin wadan nabadeed yahay wadan horumar leeyahay oo hore u socda marka insha Allah waxaan rajeen lahaa ilaahay ka bari lahaa the same time inay ka soo qayb galaan wadankooda yimaadaan ay wadankooda wax u qabtaan kii doonayeen wax u qabteen kii doonayeen ka shaqaysto kii kale doonayeen inuu siyaasadda ka qayb galo dawlad siyaasadda ka qayb galo oo saabi inuu kumulto laakiin uu leeyahay in siyaasaddu leedahay shuruudaheedii iyo wixii iyo maamulkii loo mariyay si laftigeeda marka aad iyo aad baan adigana Mohamed oo ku salaamaya aad iyo aad baan mahadsan tahay yadigiisayaasha iyo taageerada waa si wanaagsan aad baan kaga mahadcelinaya iyadoo kulli xilli dambe ku tahay waqtigan oo aad nasiisay oo aad noo soo jeeday runtii aad iyo aad baan kaga mahadcelinaysaa waqtiga Yahye Abdi Mohamed aad noo siisay waxaan jecelahay inay noqon doonto inta campaign-ka amba ololu socdo inaan marar badan ku kulmi doono sababta dambe wasiirada noo casuuman oo runtii halkan Waraysi kula yeelan doonaa sidoo oo kalena waxaynu samayn doonaa dood wadaag mucaaradka iyo xukuumadda marka runtii kulay marar badan baynu ku kulmi doonaa halkan bulshada iyo adigaba waxaan igaga tagayaa ismaqal lama waxiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وأنا أقول لهم محمد أحمد وحنا نلاقي إنتر كل بدونه برامج كمل لمده نولي كلنته